aqda si gooni uga hadashay diintana waa ka hadashay صح marka miyaysan is hoosgalaynin mise waa laba shay oo kala duwan qofka akhlaaqda sareyso qofka markii culimada markii akhlaaqda ay sara sheegayeen waxa waa qofkan inuu markasta dhoola cadeey dadkana uusan dhibin dadkana caawiyo saddex calaamad qofka laga helo akhlaaqdiisa wanaagsan tahay qofkaas akhlaaq dabeecada marka waxay soo hoosgalaysaa marka akhlaaqdiisa qaar waxaa jirta loo dhashtaa jirto okay adeeg oo kale iyo waa dabc waaye qofkan waa qof rasuul sallallahu alayhi wasallam nina uu yimid wuxuu ilaahay wuxuu ku siiyay laba sifa waxa la ilaahina jecel rasuulkana jecel maxaa waa alxilm wal anaa ma anaa ma kasbada misila ilaaha ku abuuro dhah marka waxaa jirta ilaahay qofku ku abuuraa laakiin akhlaaqda wanaagsan maxay sameynaysaa waxaas jibinaysaa haddii aad qof ku dhihi oo ku dhahay ani isma bedelay qofkaas haddaba waa ku sheey ka fogo ani saana isma isbedelay haduu kira ka fogo qof ibn aadan isbedeli kara xataa haddii qofku uu aaminsan yahay dabeecadan inuusan iska bedeli karin inuu isku dayo oo uu yiraahdo pointiga taas hadduu qofku ma bad masam ani saana hadduu ku yiraahdo that means he's not willing or she's not willing to change why qofkan wax inaa bedesho waxa u baahan tahay waa inaad tilaabo qaadi wax kasta adduunka la bedeli karo ma jirto diinta islaamka waxa loo soo dejiyo caraba lagu soo dejiyay makka joogo oo adag oo dumarka dili jiro waxaan sameyn jiray umar qabl islaam soo bacda islaam soo ahaa si ahaayeen saxaabada fiiri ikrima ibn abi jahl qabl islaam soo bacda islaam soo noqday marka diinta waa inay ku bedesho dabci waa inuu hadiisan qofka aan la bedeli karin ilaahay subhanahu wa ta'ala ma soo dir leen diin qofna ma cadaabi lahayn دكتور